كاسوري محمود سو محا كاسوري يا غلطاي اي marka geelan waraabinay dagaal ka qabsaday saaxiib ardaawada jata ade nishaad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ونكسن دمان ملك السواد نقدر سنسان وصودوا هذا مقال كيسجارسية دمان تين سيشر قراية وحفاظين كبحنا يدقال كي مان تكدعي بقدركين كل وقت سديت ساعة السعودي دقال كاسي خسارها كذا شيء ففاهين أيان يدكسين أياه iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi qodobka labaad ee barnaamijka ku faaqiidi doono waxa weeye khatartii weyneed aynu xalay badbaadinay si gaar ah waxaan rabaa inaan jamaahiirta ugu mahadnaqo arrintan xalay halkan ku baahiyay oo aynu ku guuleysanay farshalinay arrintaasina waa faahfaahin doonaa odayaashii doonayay inay gaashaamo u dhuntaan isla markaasna gacan bidixeeyaan masiirka dadka reer SC Khaatumo ugu horeyn intaan labada qodob u galin inaan saxitaan ku sameeyo xalay halkan waxaan ka arabaabay Sheekh Omar Sheekh Usman oo kamid ah culimada gobolka Cayn waxaan rabaa inaan saxo halka kelmad oo ahayd inuu la shaqeeyo xiriir togan iyo mid hoose ay leeyihiin xirsi xaaji cali oo kamid ah mas'uuliyiinta jabhada argagixisada SNM lacag ka soo qaatay ninka sheekha way la soo xiriiray kitaab buu maray inaanu ku jirin qayb ka ahayn xiriir la lahayn qofka bilaadan kan afkiisa ayaa la xukumaa xog source aad heshay waxa ka muhiimsan qofka uurkiisa lama xukumo afkiisa in la xukumiyo jamaahiirtu waxaan leeyahay ninkaas hal la ogaado waa isbaryeelay waa nin kale sheekheena waxaan fiirinaa qofka cilmiga iyo aqoontiisa iyo diinta oo uu aqoon fiican u leeyahay sida daraadeed barnaamijkaas maadaama halkan ka baxay waxaan rabaa dadku inay sidaas ula socdaan ninkaas waa isbaryeelay qodobkaasi oo ah inuu lacagna ka soo qaatay xiriirna ay leeyihiin hargeysana uu tagay arintaas waa isbaryeelay waxba kama jiraan soo noo xaqiijiyay marka afkiisana xukumeynaa dadku sida hawlo socdaan jamaahiirta intaas waa qodobka kale waxa faahfaahin ka bixinaya boqorkayn dagaal culus baa maanta ka dhacay sida caadadu tahay maanta waxay maalin jimca kooxaha nabadiidka ee argagixisada SNM sida lagu yaqaano maalmaha cibaadada ee maalmaha ciidaha maalmaha jimcayaasha waxay weerar fulinimo ku soo qaadaan ciidamada daraawiishta militariga daraawiishta SC Khaatumo maanta saacadu markay 10kii aroornimo ayay weerar fulinimo ku ekeeyeen mid kamid ah fariisimaha waaweyn militariga daraawiishta SC Khaatumo ay ku leeyihiin boqorkayn iyo nawaaxigeeda ayay weerar ismiidaamin ah ku soo qaadeen ilaahay fadligii jab weyn baa la gaarsiiyay darbaaxa lagu dhuftay dagaalkii 10kii aroornimo bilowday caawa maqribadii ayuu soo idlaaday ciidanka SC Khaatumo waxay ku afurada ku karsadeen halka ay ula magac baxeen Baliyo Umar sida muuqaalkan aad ka aragtaan baraagahani waa baraagihii Baliyo Umar ciidanka daraawiishta SC Khaatumo ayaa ku guuleystay inay jab weyn gaarsiiyaan oo aysan ka soo waaqsan kooxaha nabadiidka ee ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka reer SC Khaatumo isla markaana dagaalka kula jira dawladda iyo ciidanka daraawiishta SC Khaatumo ciidanka daraawiishta SC Khaatumo ayaa holac leefsiiyay kooxaha nabadiidka oo lagu yaqaano inay weeraro gaadma xilliyada Ramadaanta iyo maalmaha farxadeed ciidda jamacayaasha inay weeraro ay ku soo qaadaan waxa la dilay oo dagaalka ku dhintay sida wararka aanu helino xagoodana laga helayo Maxamed Jibriil oo ahaa taliyihii guutada Birjeex hogaaminayay weerarka waa uu ku daayay ninkaasi waxa ku ciidadeystay ciidanka militariga daraawiishta SC Khaatumo dhinaca kale waxa warar baa soo baxay sheegaya in la dilay ku dhawaad 11 kamid ah saraakiil ku xigeenno taliya codalka ah oo iyaguna dagaalka ku dhintay khasaare weyn baa ka soo gaaray waxa jirta ciidamada militariga SC Khaatumo inay gacanta ku dhigeen maxaabiis isla markaas ay ka carareen ciidamada jabhada ama kooxihii nabadiidka ay soo duulay wararka kale soo baxay waxa kamid ah dadkii baraha bulshada ugu hadal jiray oo kamid yahay ninkan magaciisa lagu sheegay ilkaasi warar baa soo baxay ayay sheegayaan inuu geeriyooday sida maqaaladan aad ka aragtaan laakiinse wali ma aanan xaqiijin oo wararka Romaniska ay soo baxayaan laba qorshe ay dagaalkan ka lahaayeen kow in lagu uryaamiyo dagaalka Daesh lagu jiro dagaalka ciidamada daraawiishta Puntland iyo ciidanka reer SC Khaatumo dagaalka kaga jiraba ama maalmihii ugu dambeeyay halkaasi tagayay dagaalkaasi in lagu dhabarjabiyo ama lagu uryaamiyo
ujeedada koowaad ee kooxda nabadiidka ee argagixisada SNM ay ka lahayd waa qodobka labaad oo ay dagaalkan ka lahayd waxa weeye inay xogo waxay heleen in waftiyo ballaaran ay gaari doonaan laascaanood maalmaha soo fool leh si taasi khalkhal loogu abuuro in iyaguna dagaal bilaabaan labada ajade ayay ka lahaayeen xogahoodana waa lala socday dagaalkani goormuu istaagi doonaa goorta ayuu istaagi doono sida la rumaysan yahay weeye waa marka ciidanka daraawiishta SSC Khaatumo ay xaqiijiyaan amniga SSC Khaatumo si guud ayna gacanta ku dhigaan tuulooyinka loogu soo duulay sida Caynaba iyo Og ciidamada militariga hadii ay gacanta ku dhigaan waxa weeye waxay la tahay waa ay soo afjarmaysaa weerar daba oo lagu soo qaaday ma jirto laakiin inta ciidanku aanay amar haysan inay Og iyo Caynaba qabtaan dagaalkaas waa soconaya sida aan xogaha wararka hoose aan ku helino waan u hambalyeynaya ciidanka daraawiishta dawladda SSC Khaatumo guulaha ay soo hoyeen iyo geesinimada ay muujiyeen waxaan rajaynaynaa madaxdeenu inay gartaan waxa runtii xaqiiqadu tahay oo in ciidanka la fasaxo ciidankuna xadka iyo xuduudaha SSC Khaatumo ay soo xiraan oo ay soo taabtaan ilaa iyo labada gaatama markaas runtii xaqiiqada ay hadii la ku reeyay la wajahaya qodobka labaad ee barnaamijkan ku faaqidi doona waxa weeye xalay halkan arrin baan ka dhawaajiyay sir weyn baan fashilay sirtaas waxay ahayd mid la doonayay in lagu majaxaabiyo masiirka SSC Khaatumo dhiigga dadka reer SSC Khaatumo niman odayaala buuhooda iska abaabulay badankood magacyadooda carrabaabay maanta buuhooda doonayaan ka baxaan fariintii aan xalay jamaahiirta reer buuhooda u diray fariintii waa qaadeen sida ahayd ban u fuliyeen horta jamaahiirta reer buuhooda waxaan leeyahay cimaamad baan idin saaray reer SSC Khaatumo dhanana wakiil ka dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisaba cimaamad baan idin saaray waxaad muujiseen rabitaan dawladnimo oo SSC Khaatumo waxaad muujiseen inaan la idin khiyaameyn karin waxaad muujiseen inaad weli qalbiyadiina aanay ka bixin ragga geesiyada ahaa ee u shahiiday dalkan iyo deegaankan iyo jiritaankeena iyo gobolnimadeena waxaad muujiseen karti waxaad muujiseen wadaninimo guuto koowaad jamaahiirta reer buuhood hawshii wanaagsaneed ee aad qabateen waan idinku bogaadinayaa waxaad badbaadiseen midnimadeena iyo wadajirkeena waxaad badbaadiseen xididkii sukan hayay waxaad badbaadiseen wadajirkeena iyo jiritaankeena waxaad badbaadiseen qadiyadeena haddii aydan ka hortagin odayaasha koofiyad bacdayaasha ee doonayay inay door ay heshiis kula soo galaan gaashaamo heshiiskaas wuxuu ahaa qorshayaasha laga lahaana caawan idin sheegaya in ulbahanta iyo reer SSC Khaatumo beelaha reer SSC Khaatumo inay kala shakiyaan reer walba uu foof tago marka la yiraahdo buuhoodle ayaa heshiis qaadatay oo isaaq heshiis la gashay marka reer Soola soo kaligood tagi maayaan heshiis qaadan maayaan reer Sanaagna sidaas la mid ah Soomaalidu waxay tiraahdaa chief hooyadii ku gowracan cid u diidaysa absolutely ma ay jirin cid arinta ka shaqeysana odayaasha kaliya maaha arintaasi waa lagu lamaanayahay maamulka qayb ka ahaa waa khiyaamo qaran weeye waa khiyaamo annagu cid ilaahay baan caabudnaa cidda khiyaamada ku wada dadkeena iyo maamulkeena anigu ninna ma kala jecel ciidan waji uga doonayo ciidan magaca credit uga doonayo ma jirto muhiimadda waxa weeye dadkeenu inay nabadgelyo helaan waxbarasho helaan deganaan helaan dawladda iyagu leeyihiin helaan midnimadooda iyo wadajirkoodu ay noqoto mid waarta oo taama intii hawsha ku hawlaneed intii oqaan nimanka koofiyad bacdayaasha kala shaqeysay intii shirki buuhooda la fadhiday ee maamul ahayd ee shacab ahayd waa khiyaamo qaran bay galeen waqtigeeda iyo waayaheedana waan la sugaynaa maxkamad baynu saari doonaa waana la xisabtami doonaa waxay ka shaqeeyeen shalay in la kala irdheeyo reer SSC Khaatumo arrintaasi khatar weyn xalay ma seexan runtii waan soo jeeday ilaa saaka waxaan seexday markii aan ku hubsaday in la baajiyay jamaahiirtii kacaan guuto koowaad kacaan laga adkaaday kuwii doonayay dhiigeena ka baa mushtaraan kuwii laba meel u kala yaqaanay Ceregaabay buuhooda Laascaanood haddaad Ceregaabay buuhooda Laascaanood ninka laba iyo saddex u kala yaqaano anagu ma kala naqaano mid bay noo yihiin haddii nabad ay xirmayso haddii nabad la qaadanayo reer SSC Khaatumo hal af ku wada hadlay oo mid oo wada jira
ayay waxa weeye nabad wada qaadanayaan nabaduna ay ka wada xaasil noqonaysaa sida xabadu wada saamayso ay isugu gurmadaan ayay nabaduna wada qaadanayaan sabab loo kala irdheeyo sabab loo kala faqfaqo sabab group gooni loo tashkiiliyo meesha ma taal arintaana jamaahiirta ayaa baajisay ku guuleysatay reer SC Khaatumo dhanban hambaliyo iyo dhanbaal hambaliyo idinka wada guusha iyo geesinimada aad muujiseen waxaad u hiiliseen wallahi saaka waxaad u hiiliseen wiilashii aad wada garanaysaan hayeeyadii aad wada garanaysaan ee u gadgalay gobonnimadan iyo guushan aynu maanta ku noolaana ee qabriyada waxa way hurda ee xabaalaha ku jira baad u hiiliseen inkooda ayaad ka turjunteen absolutely adigu maanta waad jeclaan lahayd dad maanta hooseysid oo ay taadi noqotay in wixii aad ku dhimatay in lagu far adeego waad ku farxay oo waad ku farxi lahayd waad ku waxa weeye daashoon lahayd taasna waa qodob weyn arintan markaa jabhada argixisada sanab ujeedka kale ay maxay tahay kow kala qaybin beelaha reer SC Khaatumo kala shaki wadada in la furo buu hoole kadibna soo la tagtayna ay gaar u la heshiiso sanana gaar la heshiiso adduunka iyo caalamka wixii ka iibin jireen oo ahayd beela reer SN ba isdilayo heshiinaya tiina waa gadala sawirkaas ay qaadan lahayn adduunka iyo caalamka waxa weeye deel ku ay u diri lahayn arinta kale ku gadaaban waxa weeye qodobkan waa in la ignore gareeyo maamulkii dawladda ay u dhisanay taasna qodob ayay kamid ahayd waxay kaloo adduunka iyo caalamka ka iibin lahaayeen beela ayaa walba isdilay waxa la dafiri lahaa duqeyntii laascoon loo geystay waxa la dafiri lahaa haliyadii naga dhintay waxa la dafiri lahaa masiirkeeni baa la dafiri lahaa idinka badbaadiyay sooliya sanaag waa lagu dhici waayay reer buuhoodlow xiliyaha reer SC Khaatumo xiliyaha dhul baahantatiin isku duubnaada jamaahiirta waxaanu ka shaqeynaa haddeer magaalo degmo walba jamaahiir laga inaan ku abaabulo ilaaliya maamulkana ku ilaaliya danta reer SC Khaatumo odayaasha koofiyad bacdaasana ku ilaaliya gaar ka hay qadiyada man insha Allah taala aanu ka shaqeynaa sababta away waba khalisba saacadeen khatar ku galleeba saacado mar khatar ku galleeba arintan ilaa ay qaan gaadho xub siibato jamaahiirey waa leedii baahan yahay dalka idinka badbaadiyay aad baad u mahadsantiin anigana si gaar ah idinku mahad celinaya saad warkaygu qaateen sidaad ii karaameyseen saad warkayga meel dheer u gaadhsiiseen waan idinku faanaa anigu waxaa ballan ii ah inaan ka shaqeeyo waxa danteena ah waxa gobonnimadeena dhiigga haliyada inaan la dafirin cadawgeena hadduu yahay mid gudaha ku jira hadduu yahay mid shisheeyana aan ummadda u qalin soo cabaas madani may walaalkii hadduu ka shaqeynayo wax Khaatumo lidiko in aan deel ku leeyahay banaanka keeno anigu cidna credit iyo magac kaga dooni maayo haddaan cid credit iyo magac kaga doonayo dalkii baan tagi lahaa xil baan doonan lahaa maalinta hawsha guusha la gaaray baan laamba waa kan kaadida u sacbay mar roocan lahaa laakiin may absolutely xil uma dooran interestin kuma yihi laakiin waxaan weey anigu waxaan doonayaa way wiilka dhalinyarada maanta qaangaarka ee jaamacadda baranaya inuu ubadkiisa dhaxal fiican uga tago inuu isaga dhaxal fiican uga tagno gabadha wax baranaysa in nabadgelyo hesho reer SC Khaatumo in caafimaad hesho in waxbarasho bilaash hesho inay ku daashato buusheeda iyo gobonimada in meel kale wax loogu soo yeeliyo waa inta ka shaqeynaa absolutely ilmaadareero jamaahiirey waa idin jecelahay guuleysta waa idinku faanaa hawl wanaagsan bad qabatay special reer buuhood guul iyo gobonimo aad baad maashatay insha Allah wixii soo kordha halkan ayaad gariga san ka doontaan Cabbaas Madani ku dhaafay salaamu Allahi ta'ala wa barakaatuh